Sadio Mane ayaa loo caleema saaray xiddiga ugu fiican sanadka 2018-2019 ee qaaradda Afrika kubadda cagta. Xiddiga kooxda Liverpool, Sadio Mane ayaa loo magacaabay xiddiga ugu fiican qaaradda Afrika markiisii ugu horeysay kadib markii uu ka guuleystay saaxiibadiisa reer Afrika ee Mohamed Salah iyo xiddiga kooxda Manchester City ee Riyad Mahrez. Halka gabdhahana ay ku guuleystay gabadha xulka Nigeria iyo kooxda Barcelona u ciyaarta ee Asisat Shuala oo loo magacaabay xiddiga sanadka ee dhinaca haweenka kubadda cagta. Kooxda Algeria ayaa iyaduna loo magacaabay kooxda sanadka ee dhinaca ragga. Tababaraha qaaradda Afrikana loo magacaabay Jamal Belmadi. Cameroon ayaa qaadatay abaalmarinta kooxda sanadka ee haweenka iyadoo tababaraha xulka South Africa ee Desire Ellis uu ku guuleystay abaalmarinta macalinka sanadka ee dhinaca haweenka. Sadio Mane muxuu ku mutaystay inuu noqdo xiddiga qaaradda Afrika ee 2018-2019. Sadio Mane waxa uu kooxda Liverpool ka caawiyay in ay kooxdu ku guuleysato finalka Champions League bishii June. Mane waxa uu la wadaagay Premier League Golden Boot ama kabta dahabka ee gool dhalinta Mohamed Salah iyo ciyaaryahanka kale ee reer Afrika ee Aubameyang kadib xilli ciyaareed muhiim ah oo ay soo sameeyeen ciyaartooyada reer Afrika ee kubadda cagta ka ciyaara dalka Ingiriiska. 27 jirkan ayaa sii waday qaab ciyaareedkiisii fiicnaa isagoo oo xilli ciyaareedkan dhaliyay 12 gool oo horyaalka ah. Sadio Mane waxa uu noqonayaa ciyaaryahankii labaad ee reer Senegal ee ku guuleystay abaalmarinta noocan oo kale kadib ciyaaryahankii amahliyeyigii reer Liverpool ee Alhaji Diouf ee 2001-2002 ku guuleystay. Mane waxa uu gacan ka siiyay kooxda Senegal in ay gaadho finalka ama kaba dambaysta koobka qaramada qaaradda Afrika.